golaha oo gartay dastuur la ansixin waayey muddo intuu dalkan dib u dhis ku jiray 20 sano ah waxaa sharaf ii ah maanta inaan hortaaganahay ka mid ahay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee 11aad kaas oo maanta dhammaystiraya dastuur weligii la dhammaystiri waayey waxaa u hambalyeynaya hoggaankii gartay waxaa u hambalyeynaya guddoonkii gartay waxaa u hambalyeynaya Soomaalida garatay maanta dalkeenna inuu dastuurkiisa dhammaystirmo waxaa sharaf ii ah hoggaanka dalka maanta haya in aanay gacmo iyo lugu haddii la qabto danta qaranka Soomaaliya oonan cidna u aabayeelayn inuu hore u wado waxaa sharaf ah in gacmo shisheeye dalkan dastuurkiisa in loo gacan hayo inay noqoto inaysan suurtogeli karin madaxweynaha guddoonka baarlamaanka waa 70 jiro ogaaday dalkan maantayto inuu u socdo waddo keliya waddadaas oo ah waddada horumarka waxaan rabaa sidoo kale baarlamaanka hoggaankiisa inaan bogaadiyo qaabka hanaanka inta la isdilo la isdagaalo haddana laga doodayo dastuurkii in maanta cid dagaalamaysa aysan jirin amnigeennana baarlamaankana waxgarad noqday uu fahmay dalkan inuu u baahan yahay horu socod cidda diidaysa maantayta in baarlamaanka uuna shaqayn maxay rabtaa cidda diidaysa maanta in dastuurka kumeelgaarka la joojiyo maxay rabtaa cidda diidaysa dalkan inuu hore u socdo maxay rabaan maalin kasta saakol siyaasadeed aan dhammaanaynin oo aan shacabka gaarin in lagu jiro dalkan waxaa laga qabtay doorasho qof iyo codod gobolka banaadir waxaa la qabtay oo imaaday hoggaan waxaa dhacay in la helay hoggaan shacabka ay doorteen ma waxaasaa laga xun yahay maanta waxaa sharaf u ah qaranka Soomaaliya inaad ka mid tihiin baarlamaankii sheeganaya dastuurka Soomaaliya dhammaystiray dastuurkan maaha dastuur annaga aan leenahay keliya waa dastuur shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin waa dastuur qof walba aragtidiisa uu keenay halkan waa dastuur aad arkaysaan mucaaradka inay maanta mikrofoonka baarlamaanka dhahayaan waxaan wax jira maaha waa hanaan dimuqraadiyadeed aan weligeed la arkin yaanan been la isku sheegin hoggaan adag oo aanan dhegta iyo meesha u socda ka leexanaynin ayaa dalka hoggaamiya ama aan ku dabafeelno ama aan la nimaanno mashruuc ama qaanuun ama hay-ad ama waddo saxa oo qoran oo dalkan ka wanaagsan waxa aan wadno ama haynaa ma firimbi ayaa la rabaa in baarlamaanka lagu haysto ma waxaa la rabaa 4 wiil inay 150 ama 200 meeshaan fadhiso loo afduubo waa naasatiin guddoomiye